بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشهر رمضان صار الله وضع صعنه وهدية إلهي سبحانه وتعالى، وإلهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلت لقلي أمديسي وقلت لقلي si ay uga saxay qaataan wixii anfici lahaa inta ay adduunkan ay socdaalka ay ku yihiin dhamaystirna ay uga heli lahaayeen iimaankoodii iyo ruuxoodiiba inuu u dhamaystirmi lahaa. bisha ramadaan waa bisha uu qofku ka adkaanayo dhoobadii, uu ka adkaanayo ciidii iyo caradii, uu ka dul marayo dhulkii iyo hoosaadkii, uu isku dayayo inuu ruuxiisu iyo basiiradiisu inay samaawatul ula inay koraan, malaa'igta muqarrabiinta daris ay la noqdaanoo ay kula tartamaan daacada, ay kula tartamaanoo malaa'igta daacada kula tartamaanoo ay ka bari noqdaan macsiyada, ay ka bari noqdaan iyaga oo ilaahay ka magan gelaya cadowgoodii koowaad oo shaytaanka ahaa, naftoodiina la tacaalaya inay u dhimriyaan oo ay barbaariyaan oo ay tarbiyeeyaan inay ka qaadato saad weyn, inay ka qaadato bishan, ay ka qaadato bisha ramadaan. qofka, qoyska, qowmiyadda dhammaantood wuxuu ku abuurayaa rajo, badbaado, guul, inuu guulaysto. waa bishii albaabada jannada la furayay, waa bishii albaabada naarta la xidhayay, waa bishii qooraha dadka laga xoreynayay, naarta laga xoreynayay. ramadaan nafta ayay nadiifisaayo tadkiya iyo tadhiir ay ku samaysaa, shahawaadka gaalib lagaga noqdaa, ilaahay xaggii subxaanahu wa tacaala ayuu qofku dhadhansadaa dhawaanshahu ilaahay u dhow yahay subxaanahu wa tacaala. wuxuu qofku iska furaa oo uu ka xoroobaa dabar walba, xadhig walba oo naftiisa ku xidhnaa oo addoonnimada ilaahay uu addoonka u yahay uu dhaawacayay buu iska furaa, bishan iska furaa. wuxuu xagga ilaahay ugu dhaqaaqaa orod isagoo guclaynaya, wacajiltu ilayka rabbi litardaa, rabbow xaggaagaan u soo orday, rabbow inaad raali aad iga noqotid. oo uu markaa isagoo ka murugaysan wax allaala wixii culays dembi ahaa ee saarnaa intii uu adduunka u joogay. jirkaa ku caafimaada, ruuxaa ku kobca, naftaa ku daahir garowda, mujtamacaa ku walaalooba. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala naxariistiisu ay soo dhaadhacdaa. waxa weeyaan subxaana allahi alcaliy alqadiir, waa bil khayr qabta, una baahan inaynu bal duruus aynu qaadanno joogto ah. aynu maanta bilaabi doonno haddii ilaahaymo duruustaasaynu bisha oo idil aynu wadi doonno. laba dhanba waynu ka eegi doonaa bisha ramadaan. dhan waxaynu ka diraasoon doonaa dhankii fiqiga iyo axkaamta fiqiga ay ku jirto, isaga taxana joogto ah ayaynu kitaabkii buluuqi ilmaraam ee ibn xajar alcasqalaani qoray, kitaabu siyaamkiisa aynu soo qaadanay. markaa aragti fiqi ah ayaynu ku eegi doonaa. duruusahaasi way noo socon doonaan. waxaynala agtooda waxa inoo socon doona iyadna duruus kale oo duruus guud oo ruuxi ahoo rabbaani ahoo tarbiyo ahoo taskiye ah aynu bishaa ramadaan aynu maalinba in ka qaadan doono haddii ilaahay idmo, intuu ilaahay inaga siiyo. awal shay darsiga koowaad waxa weeyaan bushraakum haadaa ramadaan, waa bishaaraysta, waa xalqadii, waa xisadii koowaad. waxa weeyaan ku bishaaraysta, waatan ramadaan, waatan ku bishaaraysta. nabiguna wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam mid ugu bishaareeyay asxaabtiisa uu ku oran jiray qad jaakum shahru ramadaan, waxa idin yimid bishii ramadaan, waa bil baraka badan, si inaad soontaan baa laydinku waajib yeelay. jannada albaabadeeda la furaa, albaabada jaxiimkaa la xidhaa, shayaadiintaa la dabraa, habeen baa ku jira kun habeenka khayr badan. qofka habeenkaa waaya khayrkiisa wax badan baa isagana uu waayaa buu nabigu lahaa sallallahu alayhi wasallam. dadkeennii inaga horeeyay saalixiinta ahaana ilaahay bay weydiisan jireen oo bari jireen bisha ramadaan inay gaadhaan. ibnu rajab waxa uu kitaabkiisii lataa'ifka ahaa ku sheegay isagoo ka soo warin ninkii la oran jiray mucalla ibn al-fadl rahimahullah wuxuu yiri kaanu waxay ahaayeen dadkii hore ilaahay kuwa barya 6 bilood
ilaahow ramadaanna gaarsii lixda bilood ee ramadaan ka dambaysana ilaahay bay bari jireen ilaahow acmaashii saalixee aanu la nimid ilaahow naga aqbal bay muxuu oran jireen yaxya ibnu kathiir raximahullah waxaa laga hayaa inuu yidhi ducadiisii waxaa ka mid ahaa ilaahow ramadaan ii gaarsii ilaahow ramadaan ii badbaadi ilaahow ramadaan iga aqbal wixii aan la imaado ayay oran jireen wacan maalik ibn alxuwayrith can abiihi can jadihi radia allaahu canhu wuxuu yidhi saacada wuu koray rasuulullaahi wuxuu koray sallam almimbara mimbarkuu koray falamaa raqiya catabatan markii uu hal cataba oo 3 cataba ayuu lahaa mimbarka nebigu markii uu darajadii koowaad uu koray qaala wuxuu yidhi aamiin uma raqiya ukhra haddana darajadii labaad buu koray qaala aamiin ثم رقي عتبة ثالثة صدحات بوكر فقال هدنا آمين ثم قال وحير أتاني جبريل بأيمت فقال وحير يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له قفك رمضان صوها ليلة رمضان قال أنذب بقيسا لدافن فأبعده الله إلهي كاهفوغيو فقلت وحن النبي آمين بان قال وحير جبريل ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله قف صوح ليلو سو غاري أبيه لبدي دلي hooyadii aabihii ama mid ka mida soo galay oo aan baari u noqon oo ku mutaystay naar abcadahu allahu ilaahay kaa ha fogeeyo faqultu waxaan yidhi buu yidhi aamiin baan yidhi qaala wuxuu yidhi jibriil waman dukirta cindahu qofka agtaada lagu soo hadal qaado nebi maxamedow sala allahu calayhi wasalama falam yusalli calayka oo aan kugu salliyin faabcadahu allahu kaana ilaahay ha fogeeyo faqultu aamiin baan idhi nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam walaalkayow walaashay ramadaan aniga iyo adigaba haynu ku dadaalno inaana ina dhaafin way inoo soo gashee ilaa uu ilaahay inaga arkay dadaalka ay mudan tahay bishaa ramadaan inaan ku qaabilno cibaado iyo camal saalixa acmaal saalixa qurubaat durugsan in aan la nimaadno nabiga inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam fadliga bisha in soo hareysay ay leedahay iyo darajaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala bisha ramadaan uu dhigay bal iyar haan dhageysana nabigeenu sallallahu alayhi wasallam muxuu bisha maxaytu kaymin ramadaan sayyidu shuhur wa ghurratu zaman bilaha odaybay bisha ramadaan u tahay zamankana waxa weeyaan waa jabhadeedii iyo waxa weeyaan quruxdii زمنك أو إذل زمنك وحو كحرقون يبا وبشهر رمضان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحير سيد الشهور شهر رمضان شهور بلها وضي وحوه السيد وهو هركعيا شهر رمضان بسيد أبو النبي صلى الله عليه وسلم رمضان وشهر القرآن وبشي قرآنك وسود دقي وبشي قرآنك فهم كيسة يتدبر كيسة يكتكشديسة يكتكنتيسة وإلهي سبحانه وتعالى ينوجدي قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي كاسو أنزل دجي فيه بشر القرآن كلا دجي محوية القرآن هدى للناس تدكو هنون يهي وبينات وآيضا عدعد من الهدى حق هنونك والفرقان حق يا باطل كقرآن عياك لساريا صحف كي إبراهيم كتاب كي توراة يا كتاب كي إنجيل با انتبه بشهر رمضان بالسودا دعي عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري أنزل صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان صحف إبراهيم وحل سودا دعي هبينك وقهر يا رمضان وأنزلت توراة وحل سودا دعي لحمى الموضوع رمضان وإنجيل نصدح يطبن هبين أو رمضان وأنزل الفرقان قرآن كان ل24 خلد مأفر يلا باتك بشهر رمضان ما كهد أيال سودا دعيبي صدح بشهر رمضان صيام كيس إيت صلاة تراويح ذا انتبا وحي سوبيهين غفران للذنوب
dunuubta lagu dhaafaa buu nabigeenu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam an abi hurayrata radiyallahu anhu qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam man saama qofka sooma ramadaan sooma iimaan rumaysaya wa ihtisaaban ajrdoon ilaahay uu ka doonayo qufira wala dhaafa lahu isaga ma shay baa la dhaafa taqaddama horumar min dhanbi wixii dhanbigiisa hore ilaahay baa dhaafa wa an abi hurayrata radiyallahu anhu qala anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu ahaa kaana yuragibu الnaasa midkii dadka jeclaysiiya fii qiyaami ramadaan in taraawiix iyo qiyaam la tukado min gayri an ya'murahum bicaziimatin isagoon aad ugu adkaynin oo waajib kaga dhigaynin wuxuu oran jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min danbihi qofka ramadaan tukada habeenkii rumayn iyo dembi dhaaf uu ilaahay weydiisanayo gufira wala dhaafa lahu isaga dembi wuxuu horumarsado قال شيخ الخطابي رحمه الله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة نية آمن سنتهين إلهي سبحانه وتعالى أرن كان كساري ويواجب كقطعي iyo go'aan aad ilaahay ka sugaysid raqbadiisa iyo abaalmarintiisa ilaahay inuu ku siiyo naftaaduna ay ku qabowdahay oonad isqasbaynin soonku culays kugu ahayn maalmihiisu aanay kugu dheeraanayn oo aanad ka hanaynin qalbi furan aad ku qaabishay iimaanan waxtisaaba وعن أبي هريرة الله كرالي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرنجري الصلوات الخمس شنت صلوات والجمعة إلى الجمعة جمعة إلا جمعة ورمضان إلى رمضان إلى رمضان تكله مكفرات دنبغي هوبيان ما بينهن انت ود حيسي إذا اجتنب الكبائر دروب تواوي وقفك ودي وكفوغادو انت عصا دروب تال إلهي ترتريا سبحانه وتعالى أفر فضل رمضان في رمضان ليلة خير من 1000 شهر رمضان waxa ku jira habeen kun bilood ka khayr badan عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان مباشر رمضان بايدن سو هلين وبالبركة بدن إلهي بفرض كل كين كياله سماوات كوالا فرا البابدودا جحيم البابدودا والا حرا شياطين تواوين والا دبراء habeen baa ku jira habeenkaasi kun habeen ka fadli badan qofka habeenka haleeli waaya khayr badan baa dhaafay وعن أنس بن مالك الله كرر هذا قال وحي دخل رمضان بانو سو galay فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي wuxuu yiri إن هذا الشهر قد حضركم habeen bisha رمضان ويد soo haraysay وفيه ليلة خير من 1000 شهر waxa ku jira bishan habeen kun habeen ka khayr badan man hurimaha qofka habeenka garab maro faqad hurima alkhayra kullaka khayro dhan wala garab mariyay wala yuhramu khayraha illa mahrum al'iyadu billah habeenka khayrkeeda ma waayo mid aanu ilaahay khayr ban laba doonin mooyaane oo habaar qaba mooyaane cid kale habeenka ma agmarto shan fadliga ramadaanta wuxuu nabigeenu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam ramadaantu inay tahay bisha ramadaan inay tahay bishii qooraha iyo nafaha ilaahay uu ka xoreynayay naarta ilaahay uu ka xoreynayay an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam idha kana awwal laylatin min shahri ramadan habeenka ugu horeeya bisha ramadaan sufidat wala xirxira ash-shayatin wa maradatul jinni jinniku wala xirxira abwaabta naartana wala xira lama furo hal albaab oo naarima furna albaabada jannada oo dhan baa la furaa hal albaabi jannada kama xidhna munaadi baa dadka u yeedhaya yaa baaqiya alkhayri warkii khayr doonka ahaayo aqbil soo dhawow wayaa baaqiya sharrikii shar doonka ahaayo aqsir gaabso walilaahi ilaahay waxa u sugnaaday cutaqaa dad laga xoreeyay min naari naar laga xoreeyay wadaalika warkaasina kulla laylatin habeen walba ayuu warkaasi dhacay habeen walba dhawaaqa iyo baaqaasa dhacay khayr doonow soo orod shar doonow gaabso albaabkii jannada waa furan yahay kadalika fadliga ramadaan waxa inoogu jira tariiqun ila sidiiqiyya hadaad abu bakr sidiiq aad ku jamatay darajada uu gaaray sidiiqiyya inuu gaaray soonta oo laga dhabeeyo ood ku faraxdid ood qalbiga u furtid oo u hogaansatid xumahana aan yarayno wanaagana aan kobcino ilaahay xaqiisa aan u dhaqaaqno khayr baa ku jira عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله كور هدان إله حق لقو عابد إله كلماه إلهي ما إله كلمجر هدان قرأ وأنك رسول الله أن رسولك إلهي إن أعطي هدان قرأ وصليت الصلوات الخمس شنت صلاة آن أوغو وأديت الزكاة أنا آن اسكبحيو وصمت رمضان آن صومو وقمته هبينكينا وحكته كذو فممن أنا يالا إلى حريرنا يا قال وحيين من الصديقين والشهداء تدك صديقين تي الشهداء الله حريرسا هل كاسا لغو قانا أركام إسلام كأول لغوتو إيا قلبه فن إيا عقيدته وصن إيا عبادة صحسن صديقية والشهداء لغو قانا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من قضاعة لبن أو قبيل كقضاعة أسلم وصو مسلمين مع النبي معي سيلا صو مسلمين واستشهد أحدهما أحد كود بدر إلهي أشهيدي وأخر الآخر كي كلا سند بوك الدنبي قال طلحة بن عبيد الله بايري فأريت والإتسي فيها المؤخر كي سند قداشي انتي والإتسي منهما كي هور كي كالدنبي أدخل إساق أول لقليي قبل الشهيد شهيد كهورتيبو كان جنة قلي فعجبت لذلك والله يابي كاسا شهيدها كان سند بوك الدنبي إساقا لهرمري محا دعي فأصبحت واجب إبري فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جيبان أشياء وركع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أليس قد سام بعده رمضان ميانو قداشي رمضان صوم دبدي وصلى 6000 ركعة لحكن ركعنا ميانو تكن أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة انت صلاة والسنة أهنا ميانو تكنين بيو هل كون مريا صوم كي صلاة دي سنة بيو كهر ريي كدن بيي هل كيبو مريا وبعد انت كدب وقتها رمضان وكا نصيب وحل هذا قفك توبة كقابلي توبديس لا أقبلي عمل كيسي صالح هل كبعي ذنوبتي كتوبة كاني قلبي وناكسن قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.